بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالسلام على شعبتك وحراني تحتمل ولا لا غالي قصير هذا ملك استجوب كان أتبني بالسلامة يا ولا شي نجح وحد لي إيد ونكسن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. محياة مانتا ومانتي شنادة إن كنت شغل إيدي عيد الأضحى. يجي مشاهم بليانين عيد مناسبة أوجيد ومشغول سنة وانك حماهي هدان مقرنسة صولاتي شوي حسيس كجري معليش هدان اللي يدو نكسن وقت سجيتان وقت ونكسب بدلا ولا لها قاريد السود واد مركز الجبتان واد ما سنتهين ما انتو حنيدي هيا قصونا يلسو ذاكيد قبل محيها تري قبل الصومالي قيمها بدن كمدا وتوقت dalka Kenya hadana ku sugan qisadeedana waa qiso aad u dheer oo xigmad badan insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontiin aad ma garanaysaan maxay ahayd toole idaafici doonto insha Allah waxyaalo badan aad ka dhex arki doontiin insha Allah waan noo bilaabaya waxba hadalka ku dheeraan maayo waqtigu iska gaaban yahay waxaan rabaa inaan ku dhaqsado insha Allah waxay tiri kan waa jacaylkayga dhabta ah bay tiri waa jacaylka dhabta ah anigii waxaan nahay mid laba qof oo ku soo barbaaray jacayl walaalnimo oo aad u fog isku sir ah waxaan ahay bay tiri diris isku xaafad ah waxaan ahaa bay tiri walaashiisa oo kale isagana walaalkay oo kale waxa dhacday bay tiri habeenada ka mid ah iyada oo xilli uu roob ka da'ay bay tiri xaafadda inuu igu yimiday gurigayga aan ka fogeyn bay tiri gurigooda waxaan ii sheegay inuu doonayo inaan aadno riwaayad socotay habeenkaas oo ahayd bay tiri waa madays adduunyadu dadkuna way matalayaan riwaayadaas kale waad maqashan baan u maleynayaa riwaayadaasi aadayeen waxay tiri okay aan ku socno qoraalkeena waxay tiri oo marka aad loo xiiseynayay waxay tiri kama diidi karayn waabta waxaan nahay mid laba ruux oo aad isugu weyn waxaanu ii sheegay inuu ii soo noqdo si aan isugu diyaariyo yaanu sheegay inuu soo noqdo okay bay tiri isugu diray isagana hadal kama soo celin wuu iga ogolaaday wuxuuna aaday waxaan wax caado noo ahayd bay tiri inaan isku weheshano riwaayadaha aroosyada iyo ciyaaraha waxaa noo ahaayeen bay tiri kuwo nolosha ka mid ah waayo isaga wata gaari noo sahla aadistii bay tiri goobahaas waqti yar kadib bay tiri buu soo noqday anigoo diyaar ah waxaana u jaan qaadnay bay tiri xaggii tiyaatarka dadkuna aad ay ugu buuqsanaayeen laakiin bay tiri nasiib wanaag anigu waa haysanay tigirka ama tigirka saa taqaanid oo mahad baa soo gooyay oo si fudud baan albaabka uga gudubnay kadib bay tiri daawashadii riwaayadda oo aad u xiiso badneyd ayuu iga codsaday inaan magaalada dibadda uga baxno waana ka aqbalay waxaan tagnay bay tiri meel aad u qurux badan marka iyada ah anigu waxay tiri mahad uma hayo aad isin jacayl walaaltinimo balse isagu mid ka duwan ayuu wataa siduu igu soo gudbiyey waa sidan wuxuu yidhi mahad walaal muna waan ogahay inaad waxay tiri mahad walaal muna waan ma ogtahay inaan aad ku jeclahay muna waxay tiri oo anigu waan ku jeclahay mid walaalnimo mahad wuxuu yidhi laakiin anigu waxaan kugu jeclahay si dhab ah muna oo hadda makayga dheerdheer ah bay tiri walaalnimo ka fiican mahad wuxuu yidhi waa ogahay inaa walaalnimo qaali tahay laakiin aniga waxa iga soo gudboonaaday hami la xiriira jacayl aan kuu qabo oo iga ah dhab inaan nolol kula qaybsado baana iga go'an runtii waxay igu noqotay fajac si aan uga aqbalo ma aqaani si aan ku diidana ma aqaani waxaan si ka codsaday inuu ii siiyo waqti aan ku soo fikiro waanu ii ogolaaday waxaan ahaa bay tiri gabar markaa soo kacday aan weli cid la sheeko
wadaagin. Marka laga reebo bay tiri mahad oo mid walaalnimo naga dhexaystay mooye, haddaba waxaan ka bedeli waayay in aan aqbalo codsigiisa. Mahad wuu ii soo bandhigtay. Waxay tiri waa habeen bay tiri Isniin ah, jawigu waa mid aad u qurux badan oo rooban. Waxaan ku kulannay bay tiri goob gawaarida tagsiga laga kareeyo, anigoo sagootiyayay bay tiri gabar aan isku galaas ahayn, ayaa waxay igu tiri aan idin qaado si aan hadhow isugu keliyoono. Waana ka aqbalnay. Markii aan gabadhii xaafadeedii geynay kadib, waxaan beegsanay dibadda ama meelaha lagu soo sheekaysto magaalada. Waxaan ku kulannay bay tiri meel aad u qurux badan. Marka aan nasanay cabbaar kadib ayuu su'aal i weydiiyey, Muna, maxaad iga haysaa codsigii aan kuu soo diray? Aad baan waxay tiri u naxay, waayo bay tiri gobonimadu bay tiri waa ii saamixi weyday in aan markiiba iraahdo waa aqbalay. Markaan cabbaar aamusnaa ayuu markale igu yidhi, miyaanan u qalmin inaan ku jeclaado? Mar kale ayaan argagaxay oo aan ka naxay hadalka dambe. Waxaan uga jawaabay anigoo waxay tiri jeesjeesanaya, waad u qalantaa, waanan aqbalay. Habeenkaa wixii ka dambeeyay waxaan ahayn bay tiri kuwo lagu daydo ama lagu halqabsado marka jacayl laga hadlayo bay tiri. Deegaanka aan ku noolnahay nasiib darro waxay noo soo wajahday bay tiri markii dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay oo ay beelihii aan ka dhalanay dagaalameen oo aan kala fogaanay oo midba midka kale tagay laakiin uusan aqoonin meel uu u doono. Waxaanu ku kulannay bay tiri magaalada Nairobi ee dalka Kenya bay tiri gabar aan isku deegaan ahayn. Salaan kadib waxaan weydiiyey bal inay meel uun ka og tahay gacalyahaygii. Waxayse ii sheegtay bay tiri arrin aad iyo aad ugu qiirooday oo ah inuu waashay bay tiri oo ugu waashay bay tiri aniga dartay uu qashinka ururiyo. Qofkii dumarahe uu dhaayaha saarabana uu magacayga ugu yeero. Daqiiqado bay tiri kadib oohinaya bay tiri dhiilo ayaan jabsaday. Kadibna waxaan weydiiyey bay tiri meeshii iigu aragti dambeysay. Waxaana iigu tiri bay tiri magaalada Muqdisho, gaar ahaan Siinay. Dhinaca baar ayaa waxay tiri saldhigtay jirdiin u dhowaa bay tiri goobtii aan ku kulannay. Gabadhii raadka xun igu reebtay su'aalo badan oo aan isweydiiyey kadib bay tiri waxa aan go'aansaday in aan dib ugu soo noqdo bay tiri Muqdisho si aan dhibka ula qaybsado wiilkan kala fogaantuna qalbigiisa dhaawacday. Waxaana u soo anbabaxay bay tiri magaalada Muqdisho. Waxay ahayd bay tiri xilli aad iyo aad u nabadgelyadu u xumayd oo gaari aan ka soo raacay bay tiri ayaa lagu baartay bay wadada dhexdeeda. Waxaana halkaa ku waayay bay tiri wixii aan sitay oo sahay ahaa. Anigaan waxba sidan bay tiri labada shay aan xiranahay mooyaane ayaan soo galay bay tiri magaalada Muqdisho. Waxaan beegsaday guri ay lahaayeen reer aan macruuf ahayn, waayo bay tiri mid walaalkay lahaa oo Madiino ku yeelay ma aadi karo nabadgelyo xumo bay tiri awgeeda. Markii aan soo gaaray bay tiri gurigii aan u socday mise waa hor ayaa laga qaxay. Waxaan weydiiyey reer guriga aagga ugu xigay bay tiri waxaana ii sheegay inay yakshiid guureen. Waxa aan qaatay bay tiri tilmaamigii siiyey. Waxaan beegsaday meeshii la ii tilmaamay. Shida badan kadib waxaan ku guuleystay inaan helo gurigii uu ku noolaa bay tiri macruufkaygii. Hase yeeshee kuma soo qancin meeshaas nidaam xumo ka jirtay awgeeda. Durbaba waa ii soo tagtay. Waxaana beegsaday bay tiri dhanka Siinay.